wararka ugu dambeeya ee weerarkii khasaaraha faraha ba'an geystay ee ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan Hotel Xayaat ee kaabiga ku haya garoonka Aadan Cadde ayaa waxaa la sheegayaa in dhibaatooyin fara badan halka ay ka dhasheen. sidoo kale xogahii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in halkaasi galabta xilligii ugu dambeeyay la galay gudaha hotelka Xayaat kadibna weerarka uu ka bilowday si toos ah gudaha hotelka halkaas oo ay ku jiraan guud ahaanba ciidamadii halkaas loogu talagalay in ay ka badbaadiyaan shacabka ku sugan gudaha hotelka. hase ahaatee waxaa sidoo kale la sheegayaa in dhaawacyo fara badan iyo dhimasho fara badan ay jirto, waxaana sidoo kale la soo tabinayaa in uu ka mid yahay dadka halkaa ku geeriyooday oo waxyeelada ba'an ay ka soo gaartay milkiilihii ganacsadihii hotelka iska lahaa Hotel Xayaat oo isaga laf ahaantiisa ku geeriyooday. sidoo kale waxaa isbitaalada magaalada Muqdisho la geeyey dhaawacyo badan iyo weliba meelo aad u fara badan ayaa loo daabulay gebi ahaanba. haddana waxaa soconaya weeraradii ugu dambeeyey ee lagu soo afjari lahaa, inkastoo ay weli gabagabo ku dhowdahay. hase ahaatee waxaa la sheegayaa in haraadiga al-shabaab weli uu ku harsan yahay gudaha hoteelka halkaas oo ay ka dagaalamayaan. xilliyada qaarna waxaa la maqlayaa qaraxyo aad u xoog badan, walow bambaanooyin ay ku tuurayaan mararka qaar ciidanka dowladda kuwa oo weerar celis kala kulmaya xarakada al-shabaab shakhsiyaadka ka tirsan ee ku jira gudaha hoteelka. weerarkan khasaaraha ba'an geystay ayaa waxaa si toos ah mas-uuliyaddiisa u sheegtay xarakada al-shabaab, waxayna sidoo kale sheegeen in dad fara badan halkaas ay ku laayeen. waxayna sidoo kale warar aan la xaqiijin oo soo baxaya xilliyadii ugu dambeeyey al-shabaab ay sheegayaan qaar ka mid ah si dadban in ay uga baxeen Hotel Xayaat ayaa guud ahaanba intii weerarka u socday 24 saac ee lasoo dhaafay waxa uu gebi ahaanba noqday mid burburay, islamarkaasna qolalkii ay isku furmeen. waxaa sidoo kale lasoo warinayaa in dhaawacyada qaar ay weli ku go'doonsan yihiin gudaha hotelka. welina waxaa la maqlayaa sida dadka qaar ee goobjoogayaasha ah ay soo tabinayaan in la maqlayo rasaas goosgoos ah taa oo laga maqlayo gudaha hotelka. inkastoo dadka qaar halkaa ku sugan ay sheegayaan in howlgalka uu yahay gabagabo, laakiin faanole fari kama qodno weli waxaa socda howlgalkii si xowli ah ayuu u